markii ugu horeysay soo bandhigay hub iyo qalab military oo ku kaydsanaa dhismaha dhakhtarka Qudus ee ku yaala Gaza ee ay ciidamada Israa'iil qabsadeen shalay kadib dagaal muddo ku dhex marayay ciidamada Israa'iil iyo kooxaha hubeysan ee Falastiiniyiinta ee dagaalka kula jira ciidamada Israa'iil. Afayeenka ciidamada Israa'iil ayaa shir jireed oo uu qabtay xalay waxa uu ku soo bandhigay muuqaal sawir ah oo muujinaya hub iyo qalab military oo ku kaydsan dhismaha dhakhtarka Qudus hoostiisa. beesha caalamka ayaa iyaduna waxaa la sheegay inay ka walwalsan tahay xaaladda adag ee dhinaca nolosha ay ka jira Gaza iyo weliba deegaamada kale ee ku yaala jiida Gaza. waxaana u soo jeedisay Israa'iil inay joojiso dagaalka si kaalmadaha loo gaarsiiyo dadka rayidka ah ee ku xayiran Gaza. halkaas waxaa la sheegay inay ka jirto cunto yari, leydh la'aan iyo biyaha oo la sheegay inay ka go'an yihiin Gaza. mas-uuliyiinta howlaha samafalka u qaabilsan qaramada midoobay ee ku sugan Gaza ayaa ka digay